shabaab waa fikir ay ku jiraan dhammaan abdaan la madowle shanta qaaradood adduunka tirsan laakiin wuxuu magaca Soomaaliya u qaatay inuu Soomaaliya ka jiro dawladda xoogeeda in loo joojiyo la dagaalanka al-shabaab in loo jeediyaan rabnaa wiilkii dhaawac ahaa marka midna la qaado midna laga tago waxa uu ku dagaalamayo iyo askarinimadiisa iyo dagaalka uu shabaab kula jiraa maxay noqonaysaa al-shabaab waxay isu diyaarinayaan hadda cid ka hadlayna ma shabaab waxay isu diyaarinayaan inay dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ku yeeshaan dad aad u tiro badan cadawga koowaad ee qaranka Soomaaliyeed ee maanta waa ururka argagixisada ah ee al-shabaab sheegidda magacooda waxaa ka baqa muwaadin kasta oo ku nool dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya qaarkood waxay magacooda afgarashada u soo gaabiyaan Arsenal oo ay ula jeedaan koox sida baasaska kubadda cagta isula hesha rasaasta marka ay falfulinayaan iyagoo aan lahayn damiir islaamnimo iyo mid Soomaalinimo oo ka hor istaaga daadinta dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed xilligan ay ugu halis badan yihiin waxaana la rumaysan yahay inay ku milmeen siyaasadda nidaamka hay'adaha dawliga ah iyo ganacsiga oo markii horeba ay ku jireen ururka al-shabaab hadda waa awood aan la iska indhatiri karin oo u baahan in lala galo dagaal dhab ah laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxaa sii kordhiyay awoodda kooxda al-shabaab dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay oo aan dagaal muuqda la gelin ururka al-shabaab hal goob ama hal gobol ama degmo horlana ka qabsan cadawga howlgalka AMISOM ee midowga Afrika ee Soomaaliya oo muuqda inuu yahay mid gaabis ah oo aan haysan dhiirigelin heer dawladeed hadday noqoto federaalka ama dawlad goboleedyada iyo sidoo kale beesha caalamka xiriirka wadamada ciidamadooda joogaan Soomaaliya iyo hoggaanka madaxweyne Farmaajo oo gaaray halkii ugu hooseysay sida Uganda, Burundi, Sierra Leone, Kenya iyo Djibouti waxaana madaxweyne Farmaajo uu saaxiib dhow kaliya u ka dhigtay wadamada Eritrea iyo Ethiopia isku shaandhayn garabaysan ama gobolaysan oo lagu sameeyay hoggaanadii taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo la sheegay inay niyad-jab ku keentay ciidamadii xoogga dalka ciidamadii naftood horeyaasha xoogga dalka oo loola dhaqmay sidii inay yihiin caloosho shaqaystayaal naftooda lagu qiimeeyay $200 waxay keentay in argagixisada aaminsan inay jihaad ku jiraan u baneeyaan magaalooyin badan una bacbacdhigi waayaan intaas oo dhan marka la isku daro halista ugu weyn ee al-shabaab waa saameynta ay ku yeesheen dhaqaalaha waddanka waxaana daraasad uu soo saaray macadka Hiraal ee amniga ka faalooda uu ku cadeeyay kororka ku yimid ganacsiyada dhaqaalaha baad ah siiya ururka al-shabaab haddaba isba bardhiga 5 magaalo ayuu macadka Hiraal ku sheegay in baadda ay bixiyaan aad ugu qanacsan yihiin ganacsada ku nool magaalooyinka Kismaayo, Jowhar iyo Baydhabo halka Muqdisho iyo Boosaaso loo calaamadiyay inay qaati ka joogaan qaraxyada al-shabaab Kismaayo waa magaalada ugu badan ee wali fikirka al-shabaab ku dambeeyo waxaana la isbarbar dhigay ganacsada u aragto inay sharci tahay baadda al-shabaab magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ayaa tirakoobku sheegay inay yihiin magaalooyinka aan sharci u arkin lacagta laga qaado waxayna taas ku imaan kartaa laba arrin waa tan koowaad in magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho daraasadu gaartay ganacsato badan maadaama magaalooyinkaasi ku nool yihiin shacab aad u fara badan taas beddelkeed marka la barbar dhigo magaalooyinka kale waxa aad u yar ganacsada qaba fikirka al-shabaab sidaas ayayna suurtagal ku tahay inuu nambarka ku yaraaday waa tan labaad ee magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho awood maamul kuma laha ururka al-shabaab laakiin Jowhar, Baydhabo iyo Kismaayo waxay argagixisada al-shabaab u jiraan dhowr kiiloomitir oo kaliya waxaana soo gaaro amarada ay al-shabaab ka fuliso tuulooyinka hoostaga waa tan saddexaad tan ugu macquulsan ayaa ah in nidaamka dawliga ah uusan wali saldhigan magaalooyinkaas marka la barbar dhigo Muqdisho iyo Boosaaso haddaba al-shabaab waxay hadda ka howlgashaa guud ahaan Soomaaliya waxay kala goysay jidka isku xira Muqdisho iyo Jowhar oo 90 kiiloomitir ah dhowr jeer ayay qabsatay degmada Balcad oo caasimada dalka u jirta 30 kiiloomitir oo kaliya waxay gudoomisay degmada Xudur ee gobolka Bakool sidoo kale waxay gubtay al-shabaab hanti dad shacab ah leeyihiin halka baadiyaha fogna ay xoog u qafaashaan wiilasha soo kacay ee dhalinyarada ah reer miigana waxay ka qaadaan lacag baad ah oo lagu sheegay sakawaad kooxda al-shabaab waxay dishay gudoomiyaashii gobolada Nugaal, Mudug iyo Banaadir waxayna taasi tusinaysaa inay ku fiday dhammaan deegaanada maamul goboleedyada dalka intaas kaliya ma aha ee kooxdu waxay ku sii fiday dalka Kenya oo diris la ah Soomaaliya waxayna ka fulisay dhowr weerar uu ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday taliska ciidamada Mareykanka ee Mandabay khubarada ka faalooda amniga ayaa rumaysan in sida kaliya ee looga adkaan karo al-shabaab ay tahay in la sameeyo wacyigelin bulsho laakiin dawladda Soomaaliya waxay noqotay keebka yurar kadib markii ay soo saartay amar ku kooban inaan codkooda laga baahin karin warbaahinta madaxa bannaan
haddaba ma la dhihi karaa waxaa maqan doorkii culimaadudiinka Soomaaliyeed wasaaradda diinta iyo waqaafta oo ahayd in dadka Soomaaliyeed ay si maalinlaha ula wadaagaan caqiidada faasidka ah ee lagu leynayo shacabka iyo madaxda ee lagu waqiyo dowladnimada Soomaaliya.